cid allaale ciddii fal dembi ah dalkan ka geysato in lala xisaabtamo waa taa aragteen isbuucan isbuucyadii ka horreeyay baarlamaanku wuxuu ka doodayay arrimo la xiriira amniga ka doodistii waxay sii dhalinaysaa xaalado cusub oo keentay in baarlamaankii golihii shacabka ahaa ee shacabkii ay matalayeen ku qasabtay in arrimo aan ku habbooneen ummadii Soomaaliyeed ee dhaqamo ku cusub 27 sano kadib lala yimaado oo ah in dadkii shacabkii ayagoo waxba aanan galabsan la gubo keenta ayadoo ardaydii baawurtoodii saaran muxuu ahaa xabadii ay ku dhacayaan ka gaar ahaan anigoo ku hadlayo magaca haweenka baarlamaanka kokiska ka gudoomiye ku-xigeenka xildhibaan Hani Maxamed Aadan waxa u tacsiyeenaya maamadii ku geeriyootay iskuulkii jaamacadda Soomaaliya waxa u tacsiyeenaya dhammaan ehladii qaraabadii waxa rajeenaa insha Allah in qalinkii dhiigii isdhexyaal ay noqon doonto mid taariikhda iyo dhiig dambe iyo qalin dambe joojiyo inay u noqon doonto tusaale insha Allah waxay ahayd maamo dhibaato iyo duruuf idan iyo dalka Soomaaliya marxalad adag ku jiro ku soo korsatay ciyaalkeeda markay jaamacadda u dhameeyeen ayada iyo jaamacad inta gashay jaamacadii lagu kordilay waxaasna waxay noqon doontaa insha Allah ta'ala ilaahay waxa ka baryeena samir iyo iimaan inuu naga siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed dhammaan haweenweynaha meel walba ay joogaan waxa tacsi u diraya dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa ilaahay uga baryaaya ayadana qabrigeeda ilaahay inuu u waasiciyo uu uga dhigo muxuu ahaayo dhiigeedii qalinka isdhexyaalan uu tusaale ugu noqdo dhiigii ugu dambeeyay hooyo Soomaaliyeed laga daaday inuu noqdo insha Allah rajeynaya hay'adaha amnigana ma noqon doonto mid looga haro jawaabteedii iyo dad badan ay xilal ku weyn doonaan u rajeynaa insha Allah golaha shacabkana kama daali doono inuu la xisaabtamo kama daali doono in muxuu ahaayo wax allaale wixii dhiigga Soomaali uu ku badbaadayo oo shariicada islaamka ee banaysan in lagu dhaqmo inaan ka shaqeynaa rajeynaa insha Allah ta'ala waan u tacsiyeenaa dhammaan ehladii qaraabadii si gaar ah aniga gabadha habrirta u ahaa u tacsiyeenaa insha Allah ta'ala